عبدالله جعلها إنه شرحات نوصل واد ما سنتها sheekadaas waxa weeye sheekadii aan hore u soo tilmaanay ahayd hurre iyo maxay ahayd iyo cambaro dhexmartay waa sheeka 64kii dhacday isaga inta badan inoo tilmaami doona هاي الشيء هردعه نقدر نقدر عيارها أنت ودافن sheekada lafteeda cabdal ha isaga de inoo sharaxin taas wuxuu sawarta ku soo caan baxay hay'aday bahashan ay ku caan baxday wuxuu ku duubay markii horeysay caajalad ama radio Hargeysa ka duubay kolkay dadkii maqleen caajalada lagu duubtay kolka de saas ay ku faaftay meel badan ay ku gaadhay tii uu ku caan baxay ninkan magaciisa ay dad badan oo Soomaaliyeed suugaanta jecel ay ku barteen taabahay bal hadda imika isaga u tabineynaa si uu inoogu bilaabo heestii sheekadeedii horta heestaasi way jirtay suugaantaana imika taa hore aan uga soo sheekeynayaan uu tayda waqtiyada imika ilaa dhowr iyo 10 sano waan ku soo jiray munaasabado badan iyo meelaha badan iyo waxa aakhirkana imika taydii anigu buug baan qaabiyay inuu dhawaan soo baxo laga yaabo isagu qormay heestani dhawaanahan bay dhawaan baan duubnay waqti dhexdaas la duubay radio Hargeysa sida Cabdalla sheegay ku talagal lama yahayn markii aan idaacada ka doonaynay inay duubanto waana faaftay runtii maanta lafteedana halkan iska safar gaaban baan ahaayo isma lahayn Jabuuti waana markii ugu horeysay aan imiyo isma lahayn durba markii boosaasa lagu biyadeejinaya iyadaba waa iska dadkii hasaasa wax kale aan halka ugu socday hoosaasada yeelahay shalay baan ku jiray imika marka heestaasi waxay ahayd hees sida la sheegay aad u faaftay waynu bal qaban doonaa sida ku soo baxday qaabkeediiba laakiin waxaad moodaa dadkan dambe ee marka dhalinyarada ahi inaanay heesaha fikrada badan ama ciyaaraha ka haysan marka hees la soo qaadana markiiba waxa ku soo dhacaysa heesahan jacaylka laakiin heesta asalkeedu de waa heesihii hidaha iyo dhaqanka ahaan jiray heesta haddaynu tilmaan yar ka bixino bal sida ciyaaruhu ama taa lafteeduba ay ku qabsoontay taa la isaga heesiye lafteeduba siyaaba ay ku qabsootay waxa jira had iyo jeer dadka reer guraaga ah marka xilliga ay barwaaqada ku jiraan ay ka nastaan hawshii jiilaalka iyo aroorkii iyo waraabintii waxa ciyaarta ayaa la meelaha ay ku kulmaan waa ciyaaraha dhalinyaradu ciyaaruhu waxyaabo badan baa ciyaarta loo adeegsadaa dhinac waxa loo adeegsadaa in hablihii lala hasaawi jiray iyo waxyaabihii iyo barbaartii iyo wixii la iska hela meesha isku arko dhinac kale waxa laga adeegsadaa waa sidan TV-ga habeenkii wararka waxa looga socdo waxyaabihii dhacay habeenkii baa laga socdaa waxyaabihii dhacay oo habeenkii baa laga sheegay iyagoo dadkaasi sheegaya inaanay mushkilad iyo xumaan ciyaarta uga jeedin waxa heesahooda kamida Allah ayow kufriyo mayno kibir uga dhawaan mayne sacabkun baa kalkii galay يعني waxa la gaaray waqtigii ciyaaraha ee xumaan iyo dambi ma jiro uga jeed iyaga tilmaamaya marka siyaabaha loo ciyaar jiray waxa kamid ah waxa iska jiri jiray niman la oran jiray orginaagood waxaan filayaa huraan imaka aan ka duubano ciyaarta kamid buu haraga niman iska wareego oo xoolahoodii dantooda baa u nacay ciyaartaas oo habeenba meel ka ciyaarta ka qabsada الرجل افتهيله افتهيون اننا ديبانينين caana wada hooban la ah marka habeen bal reer baa laga dul qabsanaya reeraha inta badan lagu tuhmado in habla joogaan yaa laga dul qabsanaya marka dabraaca waxa loo leeyahay dabraac niman jira leeyahay iyaguna wad jiraano ma dabraac inoo yimiyo dad qariiba baa jiro aynu dalacsanayna dabraaca waxa loo leeyahay ciyaarta waxa laga dul tumay waxa laga dul sameeynaya oog dabba la shidaya ooga oo la shiday dibatan dabkaas la soo eeganaya dabraac halkaas eray ka soo jeeda marka hablahaas marka reerka lagu ogaada ciyaarta laga dul qabsanaya dabeetana hablaha waxa la doonayaa loo soo saaraa reerkuyo la ciyaara marka awalanka hees baa jirta lagu bilaabo bal reerka in la iska hubsado in dhibaata jirtay in xooli baadiyay dhowr tuluc inoo sheego isiidhahdaan in reerka iyadoo kolkay soo saarayaan markay soo saarayaan iyadoo reerkii horta bal la eegaya in mashkilada jirtay in kale hees baa jirta ay horta la hubsanaya bilo jirtay deena jirtay in kale dabeetana wuxuu oranayaa waa dhago war kama dharagti waa dhulo wax jira mooyee reerku nabad ma soo gala waxa iska hubinaya horta ku ciyaaraya haartan deeda intaan markii wax loo soo saaro oran maayaan dil doon reerka xol waa baadiyeystay dad baa xanuunsanaya dad doon geeri baa jirta dabeetana hadii habli joogan marka ciyaarta waxay oranayaan inuu ku jawaabayaan awdi billah balay beed cawro daran ka yaasin in shir laba shirkeed li shaydaan dabada loo xur dhuku waa nabada in loo wada heesto markaasuu heestii bilaabaya wareysay war waa kow hadal la weeye ku idlaahay
markaasuu bilaabaya heesta haddii aanay hablii markaas soo bixin oo aanay dabadda u soo bixin oo aanay ciyaartii imanin oo ay raagaan mid kalaa heesaya oo isla iyagiya oo doonaya inanta inay soo baxdo miiganay marti haddaad tahay reerkana maalu soo galay muska kaama eegeen buu odhanaya sida heesta u tiriyaa ma ku tiriyaa luuqda wallahi imika codkaygu aniga codkayga anigu kolley imika namiiganay marti haddaad tahay obey reerkana maalu soo galay haddee muska kaama eegen markaasuu goynaya jiibkiiyo jaandi jiibkiiyo jaandi goynaya kolley anigu intii dambe hoobal maa noqon laakiin mar isku yardayay laakiin laga yaabaa in la iga xariifsan yahay dabeetana ka kale haddana maslaxaya waa marka habluhu ay maqayin oo odhanaya aamina ilwaad qurux way soo ordi lahaydee aar baa hor yuurura islaantii baa celinaysaa way soo ordi lahaydee aar baa hor yuurura baana tixaysa dabeetana mid kale odhanaya wariyaynaan degdegine oo isna inuu qaboojiyo war waa gabadh suldaan dhalay oo saxarle hooyadee tahay oo salle bay ku horodaayoo sayna bay la odhan maaye waa lasoo sasabayaa hor samay daraanina buu odhan degdegina markaas baa habli suurtagal inay tahay timaado ciyaartan haddaan habla joogin dee waa kii hadraawi lahaa haddaan gaga ciyaarin haddaan gabadhi boodin ilaa gaga ciyaarin ma dhaanta gariyaad هذا محيد أنت حمد هذا شلو يمين يا رجل محوك لا فترة يا ما شنو كلا دريري هذا مركب نقول حق لا تشرب ماينه ما شنو كلا حياة نقنيس مركز تبعتنا حبلي مركب ويمان يان تبعتنا وعيارته وبلامس ساس يورت أنت بدن عيارته بلامس مركب دورنا عن ويديه ورجع حبلا يسوي سجرينا نبى يقول أنا بانو مدة يسوي سني إن أنت مركب فرق لا بحواي أيان سوى بيان تاع الحرالة أيوه الحلالة هذا يقرن ويدنه دي توبيها قبصته هذا يقرأتنا فراغ قادم تاكل نقول إن أنت وان تاجوا يبون مركه واي بدنا هستا يلا ونصور صديبون سيدا اسمه هساب عجيب هسوه ولي بيلا هسان وحلا هذا قلا كفول ولي بوان اللاوي هسان قلا كفول بالي هذا شرد وحى وحلا ما صور صدق إن الدبادة وبحث سوى فكرتوا صدق قبل أيه رواية أيه وحى ما قابتها أتمي بتكلم حلقة وتكفول ولبا هذا لبات شرط هذا هو كل عيسى استاكو يرحسوسه هو بين اللي لبات شري اللي مهردو كسو كعي ما هو ورا يا محل بانو قراني الله قرا أنا كل عيشة ورا مركي بدقات هاي دبيتنا وحول أنت مركي أنفر كلام بحواي بانسري دبيت أنك صور رصيوتها عيارت بام عيارت بلا بلابي ده اللي أنت وين ورصنت هاي مركي بقى فرموا على الحرالة يان هردي سيسوق الشاحي ما إنك استو شرير مرة أن شاك بالله بنشرينين هدات شيكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذا شباب إن أنا هلا أنا أول شباب يقول صدي وشيخ وعن كم هر صدي شهود كانوا يوحوا ترى هدات شيكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذا شن شهر ماله روب هلا يشوح يركوا عن يحي ينا هدات شيكت شاعر باتي هذيك لان شيء كذا يدابن وحول مركي كوي يا دايما يدبل مرة ضيق على طيبة صح سيسوق الشاحي ما إنك استو شرير مرة أن شاك بالله بنشرينين شيء يو أنا فري وأورك يجرنا شرف بيتر أورك بيكوت الماء هو فهمت هو أورك هرمي بس ما كان شيء لا ضاود بنجرة يا ماهي هاي صح شباب إن أنا هلا أنا أول شباب يقول صدق والشيخ وعن كم مهر صدق شهود كانوا يوحوا ترى شيء يو أنا فري وشيء مرخاتي هو شرعي قاصد على جبيس أي مرخاتي صح شن شهر سمعوا الرواب هلا يشوح يركوا عن يحي تا شيء قمنا أنت عضو الشيخ تهيأ شيطانك ودي عجيب horta markaas aan inta ka hadhay waa isla markiiba waxay jawaabay ilaa ma ogeyn waa waxyaabaha cajiibka ku yihiin heelamaadku halista ku yahay way suugaanta kale way ka duwan yihiin suugaanta kale ma laha gola kafuul waa sidaas laakiin way leeyihiin waa loo soo fikir waxa kale oo laga soo fikira waxaad haysatay 6 bilood wax qurux badan baad keenaysaa waad soo dhuraysaa laakiin waxaan iyagoo aan ka fikirin baa halka keenaya ta aan ku soo gabagabeynayo gogol dhiga dadka hore isugu hees jireen waxaa jira nin la oran jiray caamir oo hooba lahaa ragacaanka ah siyaastan laftooda way ku jirtaa oo ninkan hurra uu ku halqabsanaya caamir markaa habla isu heestan waliba ay qoys yihiin oo ay meel iskaga xidhan yihiin muddaa la iswaday adigu ninkii caamir waa loo taagwaa dabeetana inan la yaqaano meel lagu og yahay yaa loo raadi yaa la doon waa hebla aan doonna baa la inantaasaa ninka ah u jawaabi karayse inantii baa la keenay inantii dabeetana heesi baa la bilaabay inantii hees ay dee ka soo fakertay ayay marisay oo dheer oo halisa waxay tidhi haadweyn colaadii hororkii daraawiish maantii jid baale la helay
ragga geela halambeeyay ee ka hirqaday ma atid geeli hagooganana hilimada ragga u furay hayinada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka haqabeelay ma atid haddii beesha golof helo dabka kiisa halowga leh haaribiintu qaataan hanadadu la boodaan hilqadle iyo maadhiin malahay aniga hubo oo garabkaaga uma hoyan waxa tahay hareefka hagagaafsho meelaha habraac cirta kaga dhama anigana heli maysid haddii aad heshan hanan maysid yaan maradayda hugufkeeda iyo heemaal wanaagayga iyo hanqarkayga kula tagi maysid Amir ninka inta la leeyahay marka weyn halka ka jawaaba waliba waxaad ku jawaabaysaa inta eray ay tiri mid walba inta furto inaad adna waliba hadana wax gaar ah tirada weey ninba weydiyo waxaan ku yiri Amir marka miyuu soo urursaday wuxuu yiri Amir laftiisaan weydiyo wuxuu yiri ma soo urursanay adeer halkii aan taagnaa baa Ilaahay iga bidhaamiyo aan ka jawaab sideeda hadal aad tiriye gidi wada hogbaaska buu waa Amir jawaabtii sideeda hadal aad tiriye gidi wada hogseega midba hadal laga yiri waay haadweyn colaadii horarkii daraawish maantii jid baala la helay ragga geela halanbeeyay ka hirqaday ma atihid hadalkaana furay hooga adiga jiray hooyadayba lama qabin hooyadayba lama qabin anigu daraawish jid baala meesha ingiriisi isku galeen lagu jabay hooyadayba lama qabin daadina day ku qariyo leeyada soo hadal qaaday geeli hagooganana hilimada ragga u furay hayinada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka haqabeelay ma atihid hadalkaana furay هو تقاد بما هم قاشن قاد بما أنا يربس كها ودولان كمان مرعي كريم حديث بيش يقولوا فهلا دبك كيس هلا وقليها هاربين تقاتاني هنداد ولا بودان هل قبل أيام ماردين ما لها أنا جا هو أقرب كاجا ومهو ين هل يربى الغير كوا هراي سجوا قرأ لكن تو كتشوابي هل يربى الغير ويض إن هيسن شري قوي هنتم بدل هنشري الهرب بقى أمانة قاتل هنتم بدل هنشري وشيش كان هارب كواها هم كفاها رواق يكوها لقي وادي وهذا المرخاتري أنا جانا يهلم ميسد هدي هذا الشيء هنر ميسد يعني مرة إذا هو في كذي هم لو أنا جيجي هنقرأ كي ولا تجد هل يربانو كانر إن قبل عسلي كروه هذا هير كي يجوا يحي أنا هلي يحي ومذا هيبو ذاك تانو كابسي هنا وعني يهيب أي أراسطاي هيب تنتهي ويدي أما هو تنتهي عول أيه حوله سيهم قريه هو يجوا كاهده هنا ده كله ولا لا هو يا أبا مادلي وحتى هيقلق قلالنا وهو سنة كنت كله لكي عامرنا القاسوق هذا إسلام مرة marka waxyaabaha dadku si isugu heesees jireen ay u kulmi jireen ciyaaraha say ku bilaabmi jireen waxyaabo saasaba ahayd waliba dawaan kooban baan ka soo qaadanaya way ka si balaaran tahay waa mowduuc de aan maalin iyo laba iyo barnaamij saddex midna lagu dhameyn karay kan bay u soo noqonaa marka hurre iyo gabadhan cambaro hurre magaciisa oo dhan waa hurre إبراهيم ورسمة وهدري ولالك هدري ولالك محمد إبراهيم ورسمة وحسق لي هذا عثمان إبراهيم ورسمة وانا نيسو كذا يشرب مدوية بالوضحية يا الله يقول مجلس سوا عثمان مجلس سوا عثمان إبراهيم ورسمة قبل أنا وحلا نشري محمد إبراهيم ورسمة هوا ولا له هدري ولالي قبل أنا وحلا نشري عمبر نوح محمد لكن مركي عجلده لو دوبay si qalad ayaa loo sheegay magaciisa saxi waa kan way cajada waxa arkaysaa inaan qaab official u doomnay taariikhdan la duubay maana sheegin meesha lagu duubay maana sheegin cajada ma dhameystira waa cajad degdeg ah soo loo duubay waxa la yiraahdaa Cambaro Nuux Maxamed hurrana waxa la yiraahdaa Cusmaan Ibraahim Warsame oo hurra wanaanistiisa taariikhda ay dhacday sida Cabdalla Baaw sheegay waa 63 eriyada weeye waxay ka dhacday deegaankan Buuhood leh deegaankaasi ka dhacday Buuhoodle kolka waa gobolkan Togdheer ee Burco laga xukumo saabsiyaha Burco laga xukumo waa degmo ka tirsan Burco gobolka Togdheer area u dhow bay ka dhacday marka meel aroos ah ayay isugu yimaadeen intaanan horta gelin kelmad yar oo kale ayaan ka horeysiinayaa heesta marka hore ajarada hore aan duubay waxaan ka afeeftay inaan dhinac qura warka ka hayo laakiin maanta waxaan sheegayaa inaan dhinacii kalena aan la kulmay dhinacii hurre iyo dhinacii Cambaro labadii baan la kulmay marka hore dhinaca hurre qura ayaan la kulmay oo aan heesta ka qabtay marka ajarada afeef baan ka horeysiyay in hadhowba wixii ka soo noqday ajarada aan dhinac qura un la kulmay dhinacii kale aan la kulmay waa ajarada yar say u duuban tahay marka 26 June 2003 ayaa waxaan tagay Buuhoodle waxaan la kulmay Cambaro Nuux Maxamed gabadhii heestaan ka qabtay dabeetana qisadu say u dhacday iyo wixii iga sheekaysay ajaradna waan siiyay kuwii la duubay waliba hurra duubay oo kuwiga aan ahayn bal inay wax diidi kartay inay wax dhaliili karto Cambaro waxay ugu tiri waqti dheer bay ahayd marka maanta wax aan diiday iyo waxaan yeelo midna
waxba kama sii garan karayo laakiin heesuu sidaas way ahaayeen waqti dheer oo ka soo dambeysay hurana isagaaba waxaan ururiyay oo anigu sidaasba awood badan oo maxsaaran bay igu tiri marka runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo si fiican ii soo dhaweeyay dadkii halka aan kula kulmay ee Cambaro Nuux Maxamed oo heesta dadkii aan ka qabanayay walaalkeed Maxamed Nuux Maxamed oo caaqil ah oo leeyahay Sanweyne walaalkeed kale oo leeyahay Cali Yuusuf Maxamed iyo hooyadood Faadimo Maxamed Guuleed oo meesha aan kula kulmay oo qoys dhan meesha aan kula kulmay iyo waliba shacabkii aan kula kulmay meesha Buuhoodle si fiican oo taariikhda iyaga qabtireen ayaan kala kulmay mahadnaq way iga mudan yihiin inaan inta aan ku sagootiyo maanta marka aan labadii dhinacba ka haya warbixin arintan khusaysa oo guna inaan barnaamijka duuba waxay noqonaysaa wax runtii hufan ee noqonaysa oo aan baqdin lahayn in dhinac kale wax ka yimaadaan marka sida haddaan ka bilaabo waxay ahayd aroos bay ku kulmeen arooska waxa lahaa inankuna wuxuu ahaa Cambare reerkooda inantuna waxay ahayd hurre qoys reerkooda arooskii markii lagu kulmay hurre sidoo uu sheegay wuxuu yiri inanta arooska lahayd waanu anoo dhowrna baanu isnii warba inanta iska eego ilaa hadday inantu yar fool xun tahay heesta la idinka helayahay tana waxaan ugu tagnay inaan antii aanu moodaynayba aan ahayne dee adiyaaba sabab quruxdiisa dabeetana arooska markaan ka soo baxnay cayaartii la qabta waa cayaartii aroosyada oo inta badan aroosyada cayaar baa u dhacda soo Cambaro markaas ma naqaanayna cayaartii ku jirta dabeetana heesta bilaabay buu anoo markaa la hadlaya anoo markaa Cambaro iman heesaynin waxaan la hadlay buu inanta la guursaday maadaama aan reerkooda ka soconno dee tala iyo waano iyo baan ayuu jiray marka hurre ayaa heesta bilaabay wuxuu yiri deeqayahay la guursaday aqalkan daarta laga dhigay ee lagu xidhay daroofyada iyo dadabtan wada qardhaasta iyo barada leeyada lagu daahay iyo daladahan wada xiriirta ee dusha kaaga soo xidhan iyo waan arkaa darfoolay hoostaada lagu daadsay dadkii muxuu maaliyo dufan iyo aduun hel adiga waan arkaa barwaaqa aduun ku dhamaatay dee reerkiina waxaan ma kula qabaa mise kaligaa un baad mise doogsin kaligaa ayaad ku dabaalanaysa haddaba yaan dadku isoo dhan damacba idin keenay misna waxaan ku sii daray waxa darajo raganimo iyo dunya dhaqasho leedahay hoos ugu madaadigi dusha salaan gobaata dayax soo baxaata geeyo aan la diifeen oo dalsan lagu dhaqaata cusubaan diq laga dhigin iyo dooqun u baxaata anna inaan dadkiina ah dusha bahla jiray iyo dooya ku abaanahay afar hal oo dantaada ah duur kuula iga maqan dacwada hore waxay tahay ninka dadabta baalada galay waa duloobay shayga dabada ka tagay maryahaaga daahiri dacwada kale waxay tahay dugsi weeye xooluhu kiila ana darandeeriyay dunyadu yaani ka lumina duliyo hoos buu ugu dacwada kale waxay tahay dulmisayga ka helay diidayo ku shoogu xunay waa dignina labada dibnahaga ku ugu dacwada kalena waxay tahay niman daalina jiro dambiye dhaqxumo iyo duxu waxaan ku gelinay kugu dayay baa badani duxatada isku ugu kolka waa inantu waa reerku oo leeyo in la inceebeyn kala iyo waanu siinaya leeyahay ana danjira noo too inantii waana iyo tala iyo de qurux waad leedahay oo si wanaagsan baa lagu aroosay dabeetana Cambaro ayaa heestii qaadatay waxay goortu waa habeenimo waana heel cayaareed halqina way isu soo galay oo hare la isu garan maaye inaan kaaga heesayo hortaan isbaranay haybtaada noo sheeg yani waxa la doonayaa la sameeyo dee bal meeshaad ka timi iyo waxa tahay iyo meel lagaga jawaabi kara in la helo isu kaya sheegtay dabeetana hurre wuxuu ku jawaabay haybdoon haddaa tahay hoygiina ina geeyo hararkaaga iyo gogolo hooyadaana iga qariyo hasaaway qabo igu haybsan dabada يعني ده من حبونا نسكو رئيسنا ده سماء هلكن أيقو رئيسنا ماشي وفقار الله Cambaro waxay tiri sidii hogol kaliileed oo ka hilaacday hawd sare inaan kan yahan weynaa Saudiga hawada koray niman halawla maadin iyo boqol baar madow hurin oo la heshiinin aabahay harar aanu dhiga daayo hadalka ma aniga furabay xagga hadalka dib isaga doonaysa hurre taa wuxuu kaga jawaabay dadka himila aan jirin ruux ku hamiya baa badan qof haduu hawada koray ama fulay heegada hor ilaahay waa adiga niman sheeka ka helino hadalbayda dhex marin waliyo harana ku aqoon jirin sidoo kuugu hawlgalay hantada kaaga soo dhuro faahfaahay hadallada oo bal hebay dadka u sheeg la kuba garan maayo boqolkan halaad iyo qorigan sida doonayso waxay tiri inantii haaruf loo waraabuhu halka xorada ugu dhacay habeenka hore u sahantay adna habar yar waad aragtaa hadalku inuu wax jira yahay ujeedooyin hor la iyo hundaraadis baa tahay hadla ganacsabo anaga har looma yaala arag ana hebay ilaahay iyo hodanku deeq u bixiyaa maxaa adiga hagardaamiye kugu jira dhib iyo hawl heerkaas aanu joognaa qiimahaas aanu leenahay maxaa adigu hurre wuxuu yiri wali hadalku raarkii hoos uga ma soo degina halkii uu saaran yahay wali adigoo hutaaya ka saara heedho wala hoos u daadag saaxiibo hantida ayaa xukumay ko yaa laga helaa laba ma haween kalaan jirin
balse inay hibay sheekadu hanfada meel ka yara tahay daraanu hayno oo kula hayba iyo raas hala naguma joogaan gabdhaha ina ka hodantaan ma hadda xukumatay mise horeba waa jirtay anaga naga hal weydi yani reerkin in badan baabanu ka haynaayo qiimaha ma joogaan adigu intaas iska taataabashay kaftan ay ahayd heesti markaas bay gashay meelihii kaalmihii muhiimka ahaa waxay tidhi inantii inan yahow nin guulguul iyo gardarrada ku tala galay oo geeska fiiqday baa tahay nimaan gogolna weydiin oo galab sheeka naga helin oo gacantiisu noo iman oo guudka uun ka halacsaday genyooyinkaa kacay yaa wuxuu haban kara gooyi iyo geelisa soo tubo oo weliba ay u tahay guul haddii aadan goosan karahayn oo reerkiinu guban yahay gegida ha isku caataynine iskaga hoyo gabaylaha bay tihi haddaanad haynin qiimahan isdhibine iska joog bay tihi wuxuu yidhi hurre markuu arkay halka ay sheekadii marayso garcadaaye bohsaday guurtidii iyo islaamkiibaa guubaabshihiisii yidhi geel ma siina giddi waxaa la yidhi haa gadaan cidi rumaynayn iyo geedkaga kac inay tahay oday garanayaa yidhi been inaan ku naar gala haraan uga guddoonsaday gambar runa ma bixiya dadna mood bakhayl guraan dadna garay ujeeddada caawana golyo maasada waxaan uga golleeya dadku geel ma wada lahaa garmadoobe igu baxaya gashana iguma soo hoyan sidii guluf cadaawa haddaan reerka iyaga galo intan ooda garab dhigo gunta xerada ku hubsado lixdan ay ku gabax tidhiyo ina gaadis wada dhalay waa riyo inantii geela joogtay isna riyo haya lixdan ay ku gabax tidhiyo ina gaadis wada dhalay oo gardaqarar u weyn tahay oo iyana gawsaheeda jilibka weli gamuuraan riyaha iyaga ka soo guro oo gurigiina soo tubo adig iyo geel xidheenadu miyadan gaada kacyar iyo gucla igu imanay waa inantii boqolka geela doonaysa inantii lahayd haddaadan boqol baar madow iyo riyaan haya weliba miyaan layga hor imanayn riyaha walaanta qiyaas hawd bay joogtaa oo riyaaba uma taqaan xoolo geel iyo fardo iyo bay dee waka inta wax xanaaqtay waxay tiri guurdoon aduun beelay iyo gob danooday inaad tahay baan gacalow ku moodayay nin markii hore unda wax aan haysan ku moodayay imkaan garwaaqsaday kumar iyo inaad jiiciyo geed xun iyo qadhax tahay imkaan garwaaqsaday guri xun inaad ku noolay imkaan garwaaqsaday inaydaan guursan jirin inan ay dhaleen garaadadu anigu gaanka aan ahay gololada sidayda giniyaadka lacageed iyo gumucyaraha maadhin iyo gaariyaal afdheera iyo geeliba lagu waahay horta marka iyagaa nin gaataa gaaridooda siistaaye guban iyo cal xeebeed iyo gurigiinii orodgee riyaha gabadha lagu rabo magaynaa lagaa yidhi anaga waxa shaqadeeda maaha guban waa dhuuca xeebta ee kulaylaha waa halka hurrana marka ay ka soo jeedaadabeetana hurre wuxuu yidhi heestii waa laygu tumay waa la qoslay deegaankuna waa deegaankoodii aad baa heestii loola dhacay inanta markaa waan yar xanaaqay buulo waxoogaa baa yar galay markaa inantii wuu ergoyo reerkoodii buu la hadlayaa leeyahay warde inantaa ha la qabsado oo caamirkiiba kusoo lad qabsanaya ergii hore wuxuu leeyahay caamir baa waxaasoo kala helaya inantaa hoy hadhow baa qosolkan ma qabsataan hadalku waa garaysnaayo goshaal iyo subeeciyad baa goonyaha ka saaraaye saw kaa gaadhay maarkii linka uu ka geli jiray ha yeeshee guraaraha iyo ima gelin afxumaduyo gabaygaa kaaga hore sabankoo gola aad ka heestaabaa kuu ahayd gugoo quraho macallinkii ku gadabaray baa isagaan kuu galgaal bixin gudcur kaaga tegay damahe goofaadhi maansada weli gibisha kama rogin mana gaadhin meeshaan geediga kusoo roraya godolka iga soo dego guud ahaan dhulbahanta gaanka uu wacays dhalay oo gaar ahaana reer nuurow weligeed gabadh la sii daystaabaa goor dambe laysku hiifaayo caamir bay gadaasi heshay dhalinyar iyo guurtaba golaha waa ku joogtaan oo qosolku wuu gabaabsiiye inantu gacal ma leedahay waa reerkoodii wuxuu la hadlay gabadhii qabsada weli gibisha kama rogin mana gaadhin meeshaan geediga kusoo raray godolku iga soo dego mayadu gugaagi garab maray 30 garaad faarax aanad hayn gacanqaadka reer kale dhaban uu gayaanka u xusho adduun gooyo jara ku saaray ayaad gaadhay iyo lacag iyo lagu ardaa galay iyo waliba geel sugaysa gobla tala adduunyo mar haddaad gobaaday adigu gaadhay heerka ina bulina golake haliye qaran ha guursado gaaf loo sameeyay ina bulina wuxuu waa gabadh yar weynaatay oo maskaxdeeduna aanay marka caadi ahayn meelaha wareegto iska caanaho dadku yaqaan ina bulina way ka xanaaqday oo mar haddaad uu ka xanaajinaya mar haddaad gobaaday adigu gaadhay heerka ina bulina golake haliye qaran ha guursado gaaf loo sameeyay ina bulantaana way yar diid waxay tidhi inantii gaado bari ka soo kacay oo in badan soo jidaal galay oo garmaqaate iyo waran iyo goombiyad sitaa tahay maadigaagii errada gubay baa weliba godobi daba dhigay oo qaba eednan galay goblan tala adduunyo ha yeeshee gafkaagani anna waxaanu ii gubin garashaanadii qabin oo gagidaa iga ka hor oo wadila gawaan raacday gawaan raacu waa fardaha inta mid la fura kuwa kana gawaan raaca marka waxa leedahay iba garan maysid waadila raacday ha qiimaha jooga ma garanaysid gagidaa iga ka hor oo wadila gawaan raacday geedku istaagaba maxaa aabahay gaan iyo geel qaada lagu yiri muxuu wiil gayaani
aawaday u golongolayo intuu galay xas noo dhow isagoo gaajo iyo holan iyo galan iyo darxuma qaba gabalku waaqla ugu dhac maxaa dumarka gulaala iyo galti hoose ii timi gacalkaa hele heedhe tolka laguma godoboobe haddaan gaadho ima bulin midhiya beer ka guran maysidi haygu guban qiyaamaha bay timi da'daa ma jooge wabal isku kay haystaabe intaasoo ragan diiday ku taw igu daalay ilaa islaama ay yimi intaasoo wuxuu hurre wuxuu yidhi nin hadduu gabraar tago xabaddu goonay daaqyada iyo islaha kulligad gool garanuugta weyda iyo galinka hore yacquma rito anigana gafinaneed iyo gardarra dumar igaga timi geed korriimanaan lahay oo ima gelisa shidaad ama gaada igu sheeg ama guluf coliyo tuugo runta un hagees mari qoryadii falaadha suntale gajada looga soo jaray ka gelgelatay baa tahay maadigaan gu weynayno duumaale geel xaragala gaawaha usnan jirin maadigaan gugii xigay garab weyn ahaan jirin gumciyadu adkaadeen oo loo soo cayaar gudo maadigu se gaydhoy haddaan oday wakhtigu gaba iyo guun quustay kuu iman baryahan ilan golyaad maalahay kuu soo ardaa gala gacalkaa hele heedhe sidaa tahay gabdhaha qaar ama guga hablaa kacay ama gololo reer boqoloo kumayaal gayaankeeda araggeeda goobaana xoolo gooyo waaye ama aan kuu gol leeyahay oo guur anigu kaa rabo maxaad isla gaasiraysaa maxaad isla yaraynaysaa da'daada waanu garanaynaaye da'daada waa la garanayaa maxaad isla yaraynaysaa ee aad isla waalaysaa gabooda baa tahay dee inantuna da'doodu labadaba way sheegeenoo midna 17 jir 18 jir meelahaasuu igu sheegay midna ilaa 20 jir buu ahaa waliba inantaa yarayd gabadhaa markaa yarayd dee hurre waa la wataa marna riyuu dabada gelinaya marna da'bu dabada gelinayaayo waa dee heestiibuu dee wuxuu samaysanayaa meel dee uu inanta qabto inantii way heestay hees waliba qurux badan bay heestay oo macnaheedu tahay ama aan da' weynaadu ama aan yaraada ee dee mar haddaad riya wadato kulliba riya wax ku goyn maayo waxay tidhi mar hadduu gondaha hoose iyo awryaqaan gulqabashada guudaan dilwaabaha loo gorra dhigis lagama karo ragguna hadduu guddoonsado inuu dumarka gaasiro oo gardarrada ku tala galo geed xajiille uma waayo raggoo dumarka hadduu doono iska caayo wuxuunbuu ku sheegaya ama magaaladay gashay ama waa kan ama waa da' ama geed xajiille uma waayo ama aan gu weynaadoo duumaala geel wado ama aan gobaysaniyo soo gaadha waayen ama goortan aan kacee mar haddaanad geel dhaqan oo gacantaadu maran tahay halkani waa gar ciideed oo geesbooc ay wadatiyo riyuu inan ma gooyaan horta marka hore dee da kastaba aan joogay halkani waa gar ciideedo geesbooc ay wadatiyo riyuu inan ma gooyaan maxaa gadaha aan joogiyo kaaga xidhan gankaan ahay kol baad i guursanaysaa bay tii adiga kol baan kuu jeedaayo da'dayda iyo madahayga iyo waxayga maxaa kaaga ka baxbad hurre wuxuu yidhi aragdee in meeshii lagu laaday oo riyihiisi iyo waxiisi inan yahay garaabidiya isma qarisa geesadu buu yidhi garaabidiya geesadu waa xanuuno inta badan cudurro geela ku dhaco laga gudbo inan yahay garaabidiya isma qarisa geesadu rabbigay baa ku gaadhsiiyey gadahaaga ku ekow miyaa noqotay gaasirid iyo geed xajiille iyo cay waa hagaaga gaban tahay bal yaraantaabaan kugu yeedhay haddaad da'dii diideen yaraantaba ka soo qaada waa hagaaga gaban tahay aniga gumaro xoolaad gidda weela wacantahay adigaase kala guray maaniga aanoo goba gudnimo intaan yaboohsado xagar dhuugu igu gana iyo sida bahalka ay gala manaa webiga aan go'in iyo durdurrada ka geediyo gorogoro kalileed iyo garab weyna jiilaal aan u gowracan balli kaadi laga goostiyo golmud biyaa midadubsada maanaa subaga garaxiis iyo gembiyahaanta ciirtaa gorof caydha lalansada maanigaa gar sara tago oo reer hawd ka guursado oo guri holafa jiibsada bu reer hawdkii iyo geel iyo wuxuu caaya rihiisibu loo dudayaa leeyahay sixin iyo caano iyo baan haystaa iyo waxoo rihiisi baa bur koolkoolinaya hawdkii iyo geel iyo waxay kufaanaysa wixii buu diidaya waxay tidhi inkastoo raxmaado oo rabadinada daadxala ama uu ramaas cuno ina walawalow raadiyo adhigu raasamaal male horta marka hore inan yahow sabool ruxa iyo abaar gaagmareeba ah wuxuu reer ka doogaayo rajijiirsan waaya markuu raysin qoraacada iyo rati dhaban madooba ah oo riinji dhaanka ugu geeyey geel ruudaleeya mar haddaanad ruux dhaqan oo horweyn raaba oo rayfa loogu sahanshaa rudud ugu dareerayn oo ka dul raamin maandeeqo raajis qoysku maalayn rigli ma laha baadi iyadaan rabbi badin rafan iyo ciriid kulul iyo riyabuur ku daba joogo ka ridow xigaalkaayoo raawis noqo dulee taal wiil yahow run baa fiicane ori raaska ku joogtiyo raalliye ku noqon maayo wax intaa ka madaxroon aan u riyaaqaysha waxa kale la kaaday riyaa maayo aan u riyaaqaysha riya kugu noqon maayo run iyo reere wax kale haddaad haysan kale la kaale wuxuu yidhi cambaray duq raayibahoo rug cadaaya baa yidhi xadhig aan la raabiyin iyo ra'yi iyo go'aan dumar midna ma laha raandhis waxaan imika bilaabay heesihii aan ku jirin
cajalada markii hore labadani waa ka mid marba waan taaman doonaa inta aan ku jirno cajalada wuxuu cambaray duqraayibaho rugcadaayaba yidhi xadhig aan la raabin iyo ra'yi iyo go'aan dumar midna ma laha raandhis adigaa walaal raba riyo inaad ku noolaatiyo runta dabaq inaad saartee inan yahay rakada xiis iyo raariyey calowguman oo gugu uu ka ramashiyey rawaxyada caleen fidhatiyo ruqub kaga dareeraysaan 6 dhalo rabaayadoo riixaya 2 qood ris qabow la soo tubino barqadaanad cagarubad ramadkeeda dhiil daranoo ku rakaadan dhowr jeer riyaha maadan qaydin riyisi u amaanaya isagu wuxuu amaanaya ma se geelay badan ka galay wuxuu amaanaya